kusoo dhawaada halkaad iga daawanaysaan waa Waqooyi Tech. Maanta waxaan rabaa inaan idiin soo gudbiyo arrintii aan hore iniga ballan qaaday ee ahayd inaan idin tuso qaabka loo soo dejisto bahalkan la yiraahdo PPT ama PowerPoint. Kadibna aad adigu edit garaysan kartid ama sidoo kale aad wax ka bedelin kartid. Marka koowaad talabada koowaad intaanan qaadin waxaan kaa codsanaynaa inaad channelka subscribe saartid kadibna aad like saartid videogan si uu bulshada si uu gaadho dhalinyarada kala duwan ee u baahida u qabta inay ka faa'iidaystaan. Adiguna la wadaag asxaabtaada kala duwan, channelkana subscribe saar. Intaas ayaanu kaa codsanaynaa. Haddaba talabada koowaad aad qaadisid waxay tahay waxaad soo furanaysaa Chrome-kaaga mobilka. Badanaaba applicationada iyo waxyaalaha aynu soo gudbin doono waxay noqon doonaan kuwo inta badan mobilka la ku takhaluqa. Marka koowaad kadibna waxaad ku qoraysaa Chrome-ka searching-ka waxaad raadinaysaa qaabka aad u raadinayso waxa weeyaan free PPT waxaa loo sameeyay PowerPoint template design halka waa ku qoran waad ku dhufanaysaa. Markaad ku dhufatid waa uu kuu soo rangaroobaya. Markuu saa kugu soo baxo adigoon hoos iyo kor iyo meelahaba aadin waaba page-ka waxa weeyaan waa website-ka ugu horeeya oo ku qoran tahay free PowerPoint template design. linkiga website-kan ayaan hoos inii soo dhigi doonaa hadduu Rabbi ka noqdo. Waynu ku dhufanayna marka ku dhufano qaabka marka ugu fudud ee loo soo dejisanaya ayaan tusaya. Markaas u furtid halkan wuxuu kugu soo saarayaa waxa la yiraahdo category aad u tiro badan oo ay ka mid tahay business, computer, education, marka medicine waxyaalaha aad ka tiro badan waxaan ka dooranaa education maadaama aynu u badannahay arday. maadaama arday u badannahay waxaanu sameynaynaa education-ka ayaan dooranayna. Hoos ayaynu u wadaynaa waa dib inuu soo celiyay category-yadii ka dooranay halkan wax ku qoran get online training software waxa weeyaan waa iska xaysiis waxaan. Marka halkan markaad timaadid kan koowaad weeyaan kana waa kan labaad. Halkan wuxuu kugu qorayaa inuu free yahay calaamadda casfiiri halka waa free. Halkan wuxuu kugu qorayaa 48 slide inaad halka ku haysatid. Kan laftirkiisa wuxuu kugu qorayaa inuu free yahay oo 48 slide haysatid. Marka waxaanu dooranaynaa kan sare oo aan hadda highlight ku saaran yahay. Waad ku dhufanaysaa markaad ku dhufatid waad soo dejisanaysaa. Markaad soo dejisatid hoos ayaa waad ku dhufanaysaa markaad ku dhufatid intaadan soo dejin baan ku leeyahay. Markaad ku dhufatid halkan wuxuu kugu qorayaa boqolkiiba full editing weeyaan waa la edit gareyn karaa. Waxyaalo badan ayuu kugu qoray waa master slides weeyaan basic waxaan oo dhan. Halkan wuxuu kugu qorayaa screen waxa weeyaan screenshot waxa weeyaan sawiro screenshot oo laga soo qaaday. Halkan wuxuu kugu qorayaa inuu ka kooban yahay 1 ilaa 12. halkana 13 ilaa 24. marka halkan wuxuu ku leeyahay 30 iyo 35 ilaa 36. halkana waa 37 ilaa 48. markaad soo dejisanaysid halkan ayaa taabanaysaa ku qoran tahay click here to download this PPT template. markaad ku dhuftid toos ayuu kugu soo degayaa. markaas ayaad waxaad ku furanaysaa wakan waa socda hoos ayuu socdaa. marka inta uu soo degayo waan isku soo laaban doonaa. wakan markaan halka ku dhuftay waa soo baxay. marka halkaas marka rabtid inaad edit garaysid waad ku sirfanaysaa xoog. halkaas ayaad ka edit garaysanaysaa qoraalada waxaas oo dhan halka ayaad ku qoranaysaa dee farweyn tahay. haddii aad ka dhigi lahayd si kale haddii aad xarfaha hoos dhigi lahayd waxaas oo dhan waxa weeye halkaas aad ka edit garaynaysaa. slide-dadii waa kuwa halkan ay ku wada yaalaan. wax nin weyn loo sheego kuma harin baan u malaynayaa. dhisanka markaad aragtid aad habaysanaya wixii ka dambeeya waad bedbedelinaysaa waxaad rabtid baad ku qoranaysaa. wakaas toos ayuu kugu balkaysaa. kadibna markaad halkaas dhammaysid meel walba waxaad gashanaysaa halka fiidiyoyada meel walba waxa loogu talagalay qaarkood meelaha qaar waxaa loogu talagalay picture in la geliyo oo la baalkeeyo. qaarkood waa iska delete kartaa saa intaad taabatid baad waxaad sameynaysaa delete saa un baad u taabanaysaa. markaad taabatid delete un baad leedahay toos ayuu kaaga delete meynaya slide-kii. kuwana haddaad rabtid inaad deleted saa un baad u taabanaysaa delete ayaad leedahay. hadda fiir wakaa qaybta kale aan ku darno. markaad rabtid inaad koobiyeysid duplicate baad leedahay. laba qaybood waa ka ku koobiyey. marka aad bay u fudud tahay ii sheeg habeynta bahalkan. marka asxaabta qaaliga waxaan rajeynayaa inaad si fiican uga bogateen. koley dee wax weyn anigu inima rabeyn inaan ii tilmaamo sababtoo ah dhammaantiin PowerPoint waa taqaaniin. laakiin si qaabka loo soo dejisto presentationo special professional oo casriya baan rabay inaan iyada iniga caawiyo.
marka fadlan haddii aadan ka mid ahayn Waqooyi Tech channelka subscribe saar oo ka mid noqo, haddii kalena asxaabtaada la wadaag haddii aad naga mid tahay oo asxaabta nagu xidhan tahay oo si aan u soo badino. Hadda wixii ka dambeeya waxaan inii soo wadaa fiidiyoyaal adigu dhowr ah. Halkan aad u jeedaan waxaa ku qoran afartaas application. Waa afar application oo runtii aad muhiim u ah. Waa afar application oo runtii aanu si fiican uga wada hadli doono. Waa applicationada adduunka hadda casriga wax laga barto ugu badan. Waa afarta application ama afarta website baan niraahno. Waa website-yada ugu caansan ee wax laga barto. Iyagaan inii soo gudbin doona hadduu Rabbi raali ka noqdo. Marka daawadayaal intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa. Markaa subscribe ta saara channelka, si share gareeya oo likes ta saara, commentiga ka soo dhiibta wixii aad rabtid inaanu ka soo hadalno oo kugu yara adag oo dhanka teknolojiyadda ku saabsan. Commentiga ku soo cabira wixii aaraha aad qabtaan, wixii aad rabtaan inaanu ka soo jawaabno. Marka aad iyo aad baad u mahadsantihiin. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.